بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kusoo dhowaada darsigeena maanta waxaan weli ku guda jirnaa buugyaha barashada luqadda carabiga buug saddexaad ama tacliimu luqa alcarabiya kitaabu thalith الدرس السابع والثلاثون casharka 17aad almuxadatha casharkaas ayaan maanta dhigan doonaa insha allah wuxuuna ku saabsan yahay wada sheekaysi waxaa halkan ku sheekaysanaya macalin iyo ardadiisa almudaris macallinkii baa soo galay fasalka wuxuu yidhi assalaamu calaykum nabadgelya dushiina ha ahaata atulaab marka atulaab waxaa waaya jamcu taalib waaya hal arday hadduu yahay taalib ayaa la yidhahdaa markay jamac noqdaan tulaab ayaad dhehaysaa sidoo kale talmiid waad dhihi kartaa arday keli talaamiid markay jamac noqdaan marka waxay yidhaahdeen wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu macallinkii baa yidhi kayfa xaalukum alyowm ka warrama maanta xaaladiina atulaab ardayda baa waxay yidhaahdeen bikhayr alxamdu lilaah waanu fiicannahay mahad alle almudaris macallinka baa wuxuu yidhi maa darsu lyowm maanta maxaanu leenahay maanta cashirka aan leenahay waa maxay ardaydii baa waxay yidhahdeen marka qiraa'atuna muxaadatha waxaan leenahay qiraa'a iyo muxaadatha ayaanu leenahay macallinkii baa wuxuu yidhi marka hal daakartum almawduuc aladii darasnaahu yowma asabt hal daakartum miyaad soo mudaakarayseen ood soo akrideen buu yidhi almawduuc mawduuca aladii kaasoo darasnaahu aan baranay yowma asabt maalinta sabtidaheed marka mar hore jamac bay ahaayeen hadda arday keli bay u hadlayeen altaalibu alawal arday u horreeyba marka wuxuu yidhi nacam haa walaakin hase ahaatee fiihi waxaa ku sugan buu yidhi cashirka asaga ah ee mawduuca asaga waxaa ku sugan bacda aljumal allatii taxtaaj ilaa tafsiir waxaa ku sugan buu yidhi jumladooyin u baahan in lasii faahfaahiyo ama tafsiir laga bixiyo nacam haa walaakin ha ahaatee fiihi darsigasi waxaa ku sugan bacdualjumali jumlado qaar allatii kuwaasoo taxtaaj u baahan ilaa tafsiir caddayn u baahan altaalibu athaani ardayga hordii uu sidaas yidhi ardayga labaadna wuxuu yidhi wa cindii waxaan hayaa buu yidhi bacdu alas'ila su'aalo dhowra allatii taasoo uriidu aan doonaya an nacrifa inaan ogaado ijaabatahaa jawaabteeda kii hor wuxuu yidhi waan fahanay waan soo mudaakaraynay laakiinse waxaa ku jira jumalooyin u baahan tafaasiir dheeraad ah ardayga labaadna wuxuu yidhi cindii waxaan hayaa bacdu alas'ila su'aal ayaan hayaa buu yidhi allatii uriidu an nacrifa ijaabataha kuwaas oo aan doonayo jawaabtooda inaan ogaada almudaris macallinka baa hadlay marka laba arday marka hadleen macallinka hadlay wuxuu yidhi in shaa allah hadduu alla yidhaahda waxaasoo dhan waan samayn doonaa buu yidhi fii nihaayati darsi casharka dhammaadkiisa ayaanu samaynaynaa buu yidhi casharka maanta aan qaadanayna marka u dhammaada ayaan samaynayaa sawfa nuraajic maratan thaaniya mar labaad ayaan dib u muraajacayn doonaa darsu yowm asabt casharka maalinta sabtida ah altaalibu athaalith cashar ardayga saddexaad wuxuu yidhi hal sanaqra' mawduucan jadiid alyowm macalin waxaan akhrisan doonaa maanta mawduuc cusub nacam haa macallinka wuxuu yidhi marka haa hal macakum alkutub buwaag muwaad haysataan buu yidhi nacam haa macanaa kutubu alqiraa'a waalmuxaadatha waxaanu haysanaa buwaagta qiraa'ada iyo ku muxaadathada alyowm macallinka baa wuxuu yidhi marka alyowm maanta sanaqra' waxaanu akhrisan doonaa buu yidhi mawduuc oo muxuu yahay almasjid alxaraam mawduucaas wuxuu ku saabsan yahay masjid alxaraam buu ku saabsan yahay daalibka koowaad baa hadlay marka min fadlika yaa ustaad ustaad waa macallin horaama usoo sheegnay ustaad iyo macallin iyo mudaris kulli waa isku mid min fadlika yaa ustaada buu yidhi iga raali noqo ustaadkaygiiow uriid waxaan doonayaa an aqra'a inaan akhriyo almawduuc qiraa'atan hijriya wuxuu yidhi jahriya dhe cafwan hijriya maaha jahriya mawduuc kor loo akhrinayo jahriya waxaa waaye wax kor loo qaada siriyana waxaa waaye wax hoos loo akhrista marka wuxuu yidhi waxaan doonayaa mawduuc inaan kor u akhriyo
macallinkii baa hadlay wuxuu yidhi in shaa allah hadduu alla yidhaahdo bacda qaliil wax yar kadib ama al'aan laakiinse iminka fa as'alukum waxaan idin weydiin doonaa buu yidhi bacdu alas'ila su-aalooyin dhowra kow ama waaxid su-aasha koowaad ayna yuujadu almasjid alxaraam masjid alxaraam xaggee buu ku yaalaa daalib ardaygii baa hadlay wuxuu yidhi anaa ujiib yaa ustaadii macallinkaygii anaa ka jawaabay almudaris wuxuu yidhi tafadal soo dhowow daalibkiiba marka wuxuu yidhi almasjid alxaraam masjid alxaraam wuxuu ku yaalaa fii makata almukarama magaalada maka ayuu ku yaalaa bilmamlakati alcarabiyati asacuudiya magaalada makan waxay ku taallaa buu yidhi sacuudi carabiyay ku taallaa almudaris macallinkii waa su-aalkan la yimid wuxuu yidhi ayna maqaamu ibraahim xaggee buu ku yaalaa maqaamu ibraahim fi lmasjid alxaraam masjid alxaraam xaggee buu ku yaalaa alla subxaana wa tacaala markuu ka hadlayay masjid alxaraam sharafta iyo qiimaha uu leey wuxuu yidhi ina awala beytin wudica linnaas waxaa laga hadlaya masjid alxaraam awala beytin baa la yidhi gurigii kii u horreeyey wudica linnaasi ee dadka loo dejiyey muxuu ahaa ina awala beytin wudica linnaasi laladii bibakkata mubaarakan wahuda lilcaalamiin muxuu sii raaciyey marka aayadda ku xigta maxay leedahay fiihi aayaatun bayinaat gudihiis waxaa ku sugan baa layidhi aayaad cadcad baa ku sugan maxaa ka mid eh maqaamu ibraahim baa ka mid eh waman dakhalahu kaana aaminan walilaahi cala annaasi xiju lbeyt suuratu aali cimraan ay ku jirtaa aayaddaasi marka macallinkaba wuxuu yidhi ayna xageebaa hadda maxalu shaahidkan u socon wuxuu maqaamu ibraahim marka fiihi aayaatun bayinaatu maqaamu ibraahim aata aayad saas bay leedahay marka wuxuu yidhi macallinka xaggee buu ku yaalaa maqaamu ibraahim fi lmasjid alxaraam masjid alxaraam xaggee buu kaga yaalaa arday baa hadlay wuxuu yidhi amaama baabil kacba wuxuu ku yaalaa buu yidhi albaabka kacbada horteeda maa ismu lmaa aladii nashrabuhu fi lmasjid alxaraam waa maxay magaca biyaha laga cabo masjid alxaraamka daalibkii waa jawaab wuxuu yidhi ismuhu maau zamzam maau zamzam ayaa la yidhahdaa buu yidhi marka halkan su-aalo dhowr ay isweydiinayaan ardayga iyo macallinka almudaris su-aashii daalib ardaygo jawaabay mudaris marka halkan waxaa loo banaya waxaa waaye in aad ka soo qaadid adig inuu macallinka su-aal ku weydiiye halkaasaa ku qortid adigana ardaygaas ka dhigtid halkaas jawaabtii ayadaa ku qortid marka waxaa waaye adiga ee su-aasha keenayay haddana waxaad u raadinaysaa jawaab marka casharka saas ayuu ku saabsan yahay waana cashar aada muhiim ah maasha allah halkaas ayaan kusoo koobaya casharkeena maanta asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu